السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحد iyo nabad iyo nolol qurux badan baan idin rajaynayaa. Commentiga ayuu ninkani qoraalkan inoogu soo qoray waxa uu leeyahay xaaskayga waan isku salbanaanay inaan isku wanaagsanayn ayaa markasta waxa igu tiraahdaa sir aan ka qarin jiray ayaan doonayaa inaan kuu sheego marka aan ku iraahdo ii sheegna waxay ugu oranaysaa buu yiri waa diday ama waa isbedeshay arrinta haddaan kuu sheegana nolosheena ayay xumaynaysaa marka waan iskala laabtay wax weyn maaha ee markaas insha Allah si ku ogow arrintaasi waxay galisay buu yiri inaan aad iyo aad uga danqado isla markaana marka aan ka maqanahay hadalkaasi way igu soo laalaabtaa ana markaan ku iraahdo ii sheeg waxay ugu tiraahdaa iska liq ama iska ilow ama iska dhaaf arrinta noocaasa wax qof dumara aanu furana ma aha buu yiri bal maxaad igula talin lahaydeen aad u mahadsan yahay haddii aynu nimaadno jawaabtiisa haweenayda intaydaan isqabin wixii ay markaas ay samaysay iyo wixii markaa iyada sir u ahaa inay qarsato oo ay ka qariso mararka qaar xal baaba ku jira oo waxa laga yaabaa haddii aad ogaato inay dhibaato hor leh ay noqonaysaba marka horeba sidii aad isku guursateen ee aad ku aamintay inaad ku aamintaa wanaagsan way qaldantay xataa kelmadan inay tiraahdo sir baan kuu sheegayaa oo haddana ay kuu sheegi weydo afkeeda inay ka soo baxdo ma ahayn qofka waxa ugu muhiimsan xataa haddii uu wax sira isaga iyo naftiisa uu og yahay ay jiraan inuu qariyo oo uu isaasturo ayaa u wanaagsan qofka sidoo kale adigana haddii ay tiri wax siran kuu sheegaya markiiba dhinaca kale uu hawlo kicine inay xumaan soo samaysay inay markaas ay xumaan ku soo dhacday inay nin wax dhex mareen ee waa laga yaabaa sira kale inay jiri karaan siruhu waa iska badan yihiin sidaas uu ku aamin oo dhinaca kale u qaado inay sira kale oo nolosheeda ku saabsan oo laakiin ay qarsanaysay ay ku sheegayso dhinaca positive ka fakar marka wax isku wareerina ha galin xaaskaagana ha dhibsanin noloshiisana ay carqaladaynin markasta oo arrinta ay kula soo hadal qaatana hadday ku sheegtana arag haddii kalena hore uga soco ka soo qaad waxaas inay very simple tahay ninka raga ahi ama ninka nimadiisa waa inuu waxyaabaha yaryar ee basiidka iyo wax weynba u maamulo oo uu maskaxdiisa iyo aqligiisu u keeni karo maadaama uu xaaskiisa iyo reerkiisa ay tahay waxa yar inaanu reerkiisa aanu ka burburin ama aanu leedin intaasaynu ku soo ururayna. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.